howlaha guud waxay hogaaminaysaa shirarka wasaaradaha kaabayaalka dhaqaalaha dalka sidaad la socoteen waxa waaye waa pillar leader of infrastructure Soomaaliya waxa kaloo ay ka mid tahay guddiga qaranka ee xog aruurinta garoonka xalna iyo xeyndaabka garoonka aadan cadde iyo xal badan waxaa noo soo dhamaaday oo noo jooga inuu anu gudbino xukuumadda sharciga maamulka dhulka iyo dhismaha ama dhismooyinka oo looyradii iyo dib u eegistii dib habeyntii ka soo dhamaaday oo jooga inaan xukuumadda u gudbino oo maalmihii la soo dhaafay aan u joojinay ama aan rabnay inuu la jaan qaado wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud marka si aan u xaqiijino hadafkaas wasaaraddu ay leedahay isla markaana aan ku shaqeyno barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol ra'iisul wasaare khayre iyo ra'iisul wasaare mahdi ay hormuud ka yihiin waxaa lagama maarmaan ah in waajibaadka qaran ee laydin egmaday naloo igmaday guud ahaan haddaanu nahay shaqaalaha wasaaradda aan si daacadnimo ah u gudano waxaa jira mashaariic oo aan aaminsanahay in 100 maalmood ugu horeysa aan xilka hayo aan rabo inaan ka shaqeeyo ay ugu horeyso mashruucii dhismaha 10,000 ee guryo ay dawladda Turkiga u ballan qaadeen dadka Soomaaliyeed jeynaya wasiirka cusub Saadiq Cabdullaahi inuu run ahaantii injineer ah fulin doono hamigii walaalkii oo maanta shaqada ka bilaabaya wasaaradda shaqadii la wareegayo fulin doono hamigii iyo rabitaankii iyo ku talagalkii xukuumadda nolol iyo nabad oo wax badan ka qabsoomeen oo wax badan ka hirgaleen 100 maalmood ay jirtay waxaan uga hambalyeeynaa wasiirka dawladda iyo wasiirka ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee shaqaalaha wasaaradda shaqadii ay qabteen muddada 5 bilood